ciidamo aad u tiro badan oo kamid ah kuwa Puntland ayaa gabi ahaan maanta isaga soo baxay buuraha calmiskaada gobolka bari ee Puntland halkaas oo ka socdo dagaal ka dhan ah kooxda argagixisada ah ee Daesh maxay tahay sababta ciidamadaas u soo baxeen waa kula wadaagi doona iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland oo ku dhawaaqay inuu sii deyn doono qaar kamid ah maxaabiista ay dhawaan ka qabsadeen maamulka SSC Khaatumo shakhsiyaadka ugu caansan iyo sidoo kale tirada ciidamada maxaabiista ay Soomaaliland sheegtay in soo sii deyn doonto ayaan sidoo kale kula wadaagi doona balse marka hore wax ka codsanayna YouTube ku soo birto subscribe dhahdo muuqaalkana like saarto hadii aan ku bilaabo ciidamo aad u tiro badan oo kamid ahaa kuwii la dagaalamayay kooxda argagixisada ah ee Daesh ka dagaalamaysa buuraha calmiskaad ayaa maanta gabi ahaan halkaas laga soo baxay kuwaas oo soo aaday degmada Baran ee gobolka Sanaag degmada Baran ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ka soo cusboonaatay xiisad dagaal taas oo salka ku haysa qaadka mirowga ee laga keeno dalka Kenya ganacsatada gobolka Sanaag ayaa ku doodaysa in qaadkii ay ka ganacsan jireen kana keensan jireen degmada aan dhahay dalka Kenya ay ku haystaan shakhsiyaad awood ka haysta madaxtooyada Puntland kuwaas oo raba inay gabi ahaanba la wareegaaniin qaadkii ay ganacsatadaasi keeni jireen degmada Baran iyo guud ahaan gobolka Sanaagba balse ganacsatada gobolka Sanaag ayaa isku dayaysa inay difaacdaan ganacsigii qaadka ay halkaas keeni jireen waxayna halkaas ku aruursanayaan gaadiid aad u tiro badan oo kuwa dagaalka ah iyo sidoo kale ciidamo waxayna rabaan inay gabi ahaanba iska difaacaan shakhsiyaadka awoodda ka haysta madaxtooyada Puntland oo raba inay la wareegaan qaadkaas ciidamada maanta iska soo baxay buuraha calmiskaad ayaa lagu sheegay ilaa iyo 30 tikniko kuwaas oo ka soo jeeday heeb ahaan gobolka Sanaag waxa ayna soo baneeyeen furimo muhiim ah labadii toddobaad u dambeysay Puntland waxa ka soo cusboonaatay xiisad salka ku haysta qaadka mirowga ee laga keeno dalka Kenya kuwaas oo ay rabaan inay la wareegaan shakhsiyaad awood ku leh madaxtooyada Puntland waxay rabaan inay si khasab ah la wareegaan halka ganacsatadii awal qaadka la soo degi jirtayna ay rabaan inay iska difaacaan shakhsiyaadkan raba in ay khasabka ula wareegaan ganacsigii ay ka ganacsan jireen degmada Baran ayaa hadda waxa ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan halkaas oo la isugu keenay ciidamo aad u tiro badan kuwaas oo qaarkood ka soo baxeen furimaha hore ee dagaalka calmiskaad iyo sidoo kale kuwa ka tagay magaalada Laascaanood Garowe iyo sidoo kale meelo kale oo badan waxaana halkaas hadda ka socda hub isku aruursi wixii warar oo halkaas ka soo kordha halkan ayaa ku wadaagi doona dhanka kale maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in ay soo sii deyn doonaan 12 qof oo kamid ah maxaabiistii ay dhawaan ka qabsadeen maamulka SSC Khaatumo kadib markii 25 maxaabiis ah dhawaan loo sii daayay maamulka Soomaaliland taas oo ka shaqeeyay ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre maxaabiista ay Soomaaliland la filayo in maalmaha soo socda ay soo sii deyso waxa kamid ah taliye aadsade oo ahaa taliyayaashii ugu caansanaa Soomaaliland ka qabsatay ciidamada harti ama ciidamada SSC Khaatumo sidoo kale waxa kamid ah Umar Maxamuud Ismaaciil oo isaguna kamid ahaa ragii ka dagaalamayay Goojacade waxa sidoo kale kamid ahaa Cabdi Mudalib Cabdi Shire oo isaguna ahaa nin caan ka noqday baraha bulshada kadib markii Soomaaliland ay qabatay kadibna ay muuqaal ka duubtay ninkaasina uu u hadlay si geesinimo leh maxaabiistan la kala wareejisanayo ayaa timid kadib markii ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu yimid magaalada Laascaanood halkaas oo 25 maxbuus oo Soomaaliland ka sii daayay Soomaaliland waxa la filayaa in 12 maxbuus maalmaha soo socda ay sii deyso waxaana gabi ahaanba la sii deyneen saraakiishii waaweyneed oo Soomaaliland lagaga qabsaday dagaalkii Goojacade kuwaas oo la filayo in iyaga maxkamad la soo saaro balse ciidamada kale ayaa la rajeynayaa in la sii daayo taas oo la filayo inay kala qaboojiso xiisadii u dhaxaysay Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka SSC Khaatumo oo muddada ka soo taagneed gobolka Sool iyo sidoo kale gobolka Sanaagba daawadayaal intaas ayaan barnaamijkeena ku soo koobaynaa hadii aad halkan ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad YouTube ku soo birto subscribe dhahdo muuqaalka like saarto kambalelkana furto waa mahadsan.